السلام عليكم dhammaan inta ku xiran janalkan ee sharafta leh waxaan halkan idinkugu soo gudbin doonaa qiso dhacday qarniyo badan ka hor waxaa jiray sheekh caalim ahaa kana mid ahaa awliyada ilaahay karaameeyey habeen ka mid ah habeenada waxaa riyo ugu yimid nabi maxamed naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ahaatee waxaana uu u sheegay sheekha in nin ay diris yihiin uu rafiiq kula noqon doono jannada intaas kadib sheekha ayaa si degdeg ah uga soo toosay hurdada asigoo ku faraxsan riyada uu ku arkay nabiga sallallahu alayhi wasallam dhanka kalese wuxuu ahaa mid yaaban waxa uu la yaabanaa in isaga uu ahaa sheekh weyn oo aad loo ixtiraamo halka ninka ay dariska yihiin isla markaasna uu nabiga sallallahu alayhi wasallam kala dardaarmay una sheegay in uu jannada rafiiq kula noqon doono uu yahay ganacsade iska caadi ah sheekha ayaa aaday dhankaas iyo gurigii ninka dariska la ahaa ee uu nabiga sallallahu alayhi wasallam ku yiri u sheeg ninka dariskaaga ah in aan jannada rafiiq ku noqon doono wuxuu ku yiri markii uu albaabka ka furay dariskaygow waxaan bishaaro kaaga wadaa nabiga sallallahu alayhi wasallam ninkii ayaa si aad ah u farxay wuxuuna ku yiri bishaaro miyaad iga sidaa nabiga ilaahay ayaa ku mahadsan intaas kadib ninkii ayaa sheekha weydiiyey maxay tahay bishaaradaas sheekhii ayaa ku jawaabay wallaahi kuma sheegi doono bishaaradaas ilaa aad iiga sheegto waxaad samayso ee aad heerkan ku gaartay laakiin ninkii dariska ahaa ayaa diiday in uu sheego sirtaas dood dheer kadib iyo in sheekha uu wax badan ninka dariska la ahaa ka codsaday in uu sirta uu darajadaas ku gaaray u sheego ugu dambeyn waxa uu ogolaaday in uu u sheego wuxuuna hadalkiisa ku bilaabay sida tan inkastoo jeclaa in sirtan igu ekaato noona dhexayso aniga iyo rabbigay sannado ka hor waxaan niyeystay in aan sunnada nabiga sallallahu alayhi wasallam ku guursado ficlanna waxaan helay gabar qurxoon oo ku wanaagsan guurka waan u degdegay xaggeeda waan mehersaday muddo kadib weliba hal bil kadib guurkeena waxaan dareemay wax la yaab leh oo ku soo siyaaday xaaskayga nolosheeda subaxba subaxa ka dambeeya waxay ahayd mid soo weynaanaysa waxaana nafteyda ku dhahay macquul ma tahay inay uur leedahay laakiin hadday xaamilo tahay sidaas degdegta ah caloosheeda ugu soo weynaan kartaa sidoo kale xaaskayga kama bixi jirin guriga oo bannaanka ma aadi jirin haddii aan si kale uga shakin lahaa sidoo kale ma jirin ruux u imaan jiray laakiin intaas oo dhan anigoo isweydiiyey haddana waxba kuma dhihin waxaan sugay dhowr bil oo kale waxaana ka soo wareegtay 5 bilood guurkeena caloosheeda waxay ahayd sidii qof 9 bilood dhammaysatay waxaan aaday dhankeeda waana ku qayliyey ilaa ay xaqiiqada ii sheegtay qiratayna inay horay nin kale xiriir ula soo samaysay iyadoo uur lehna igu qayaantay guurka markay intaas ii sheegtay si aad ah ayaan u xanaaqay waali ayaan ku sigtay ma garanin waxa aan sameeyo waxaan awooday inaan markaas iska furo markaasna fadeexadeeda ayaa bannaanka imaan lahayd laakiin sidaas ma samayn meel ayaan fariistay si aad ah ayaan u fikiray waxaan go'aansaday inaan furin oo aan saamaxo si iyadana ay ilaahay uga toobad keento kadib qaladkeeda weyn iyo ficilkeeda foosha xun waan sugay ilaa uu ka soo dhawaaday xilligeeda foosha markii la gaaray foosha waxaan xilli saqdhexe habeen ah u doonay umuliso ka dhalisa canuga ma doonin in ruux ogaado dhalmadeeda umulisadii waxay ku guulaysatay inay si nabadgelyo ah canuga bannaanka uga keento waxaan sugay ilaa laga gaaro aadaanka ama aqinka salaada subax waxaan canugii ku qaaday go' waxaana la aaday dhankaas iyo masjidka markii uu imaamka bilaabay salaada dadkuna salaada wada xirteen isla markaasina uu jirin qof ii arki kara waxaan galay masjidka waxaana canugii dhigay dadkii dukanayay gadaashooda iyadoon qof ii arag anigana waxaan xirtay salaada markii salaada la faaruqay dadkii dukanayay waxay ku soo xoomeen canugii yaraa oo si aad ah u oynayay taas waxay ahayd midii aan doonayay waana u soo dhawaaday waxaan ku iri maxaa halkan ka socda waxay dhaheen kaalay fiiri waa canug yar oo halkan la soo dhigay ma naqaan wax aan samayno waxaan ku dhahay isiiya aniga ayaa kafaalo qaadaya noloshiisa
waan qaatay canugii waxaana dib ugu celiyey hooyadiis. waxaan daboolay ceebteedii. waxay taas xaaskayga ku yeelatay saameyn xooggan. si dhab ah ayayna u toobad keentay. waxay noqotay mid ka mid ah kuwa ugu wanaagsan dumarka. waan badbaadiyey, waan daboolay ceebteedii. waxaan sidaas u sameeyey ilaahay dartiis. waxaan go'aansaday in sheekadan qofna aan la wadaagin weligay ilaa aad maanta adiga iiga imaatay. intaas kadib shiiqii ayaa ku jawaabay, subxaan allah, ilaahay ayaa ku mahadsan oo aan iloowin ixsaanka ay sameeyaan addoomihiisa qaar ay u sameeyaan qaarka kale. camalkaas aad samaysay dartiis nebiga salawaatullaahi calayhi wasalam wuxuu igula dardaarmay inaan kugu bishaareeyo in aad isaga rafiiq kula noqon doontid jannada. halkaas ayaan kusoo gabagabaynaynaa qisadii layaabka lahayd ee ninkan asturay ceebta xaaskiisa, madaxeedana ku mutaystay inuu nebiga salawaatullaahi calayhi wasalam jannada rafiiq kula noqdo. ha ka iloowina inaad sii sheergaraysaan muuqaalkan haddii aad ka hesheen. sidoo kale laygta ugu roonaada, maxaa yeelay iyada ayaa wax badan dhiirigelin noo ah iyo inaan idiin soo gudbinno mar walba qisooyinka idin cajab geliya. sidoo kale haddaad nagu cusub tahay nagu soo biir. mahadsan idiin.